السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada walaalahay qaaliga waa walaashiin. maanta waxaan idin la sheergareeyo what is our dinner, ama maanta maxaa ku casheynay. cashadan waxay noqon doontaa chickenka jiirta ah. once maxaa ku dhahaa waxaa ku daray waxyaabihi ku daray inta insha Allah. then 4 saacad fridge kan geliyay. marka hadaar habeenka before sleep inta seexanin waa gelin kartaa inta wax ku dardartid waa dabooleysaa tomorrow isticmaali kartaa. marka hadii maxaan noqonaa markaas 4 saacadood ay ku jirtay fridge-ka. marka hadda karoodka jarjaranayna insha Allah. marka 3 xabba karood iyo 3 xabba baradho ah iyo waxa meesha saaran broccoli. hadii aad haysanin waxyaabo meesha soo saaran insha Allah ay qudaar ah haysta isticmaali kartaa oo guriga markaas ku taalo. muhiim ahan inaad tan maxaa ku dhahdaa haysanin istiraahid waay oo haysanin ama raadisid insha Allah. marka hadda waxaan jarjaranaynaa qudaartii baradhada hadda fiiqaya insha Allah. marka insha Allah aad u macaan tahay ma sha Allah. marka idin xariijina ka heli doontiin insha Allah tabaaraka wa taala. maalmaha wadi ka soo daahay karaali noqda mashquul iska galay iska dareemi kartiin marka family yahay hawlihi adduunka lagu mashquulay. marka hadda waxaan jeclaystay inaan cashada caawo idin la sheergareeyo insha Allah. hadda karoodka jarjaranayna marka insha Allah karoodka jarjarno iyo baradhada because broccoli-ga uu ka jilicsan yahay dhaqsiyo bislaan saas daraadeed chickenka markaan saaro waxaan ku darayaa wax yar kadib karoodka iyo baradhada. marka maxaan ku dhahaa 5 to 6 minutes markay ku jirto insha Allah. easy waa cashadan ma sha Allah 20 to 25 minutes maxaan ku dhahaa kusoo dhameynay wax dhan. marka waqti badan marka qaadanayso ani waa necbahay jikadana ku daaho wax oo maxaan ku dhahaa healthy inaan sameeyo jeclahay. marka se kuna suurta galaysa insha Allah waa inaa loo fikiraa. marka insha Allah daawasho wanaagsan. I hope inaa ka heli doontiin insha Allah. marka family-ka aad u jecel yihiin markaan sameynaa wax simple ah hadana oo healthy ah oo caafimaadka u wanaagsan. marka hadda baradhada waxa ku jira last one aan jarjareena meesha ku daray ku shubaneena waan soo dhaqeena. ani hadalka qatar ma ku ihi fahanteen marka karaali noqdo hadii aan si qaldan u hadlo waliga fiican yahay laakiin walaalo badan waxay dhaheen soo hadal insha Allah. hadalka maxaa ku dhahaa ku qanacsanaa soo hadash marka video soo dhigaysid. marka I try my best guys. kada wax qad karaan hadda baradhada maxay ahayd basashiyan jarjareena haduu ilaa yiraahdo. marka basal gaduud haystaa marka dib mar hadda tan cadaystid waa isku mid tii markaas aad jeceshaa ama haystid aad isticmaali kartaa. marka waxa way galab waaye saidii shay waa casho. marka hadda broccoli xitaa aad u fiican yahay caruurta dad aqoonin waa bari kartaa because biya karkarinaysa waa jarjaray waa dhaqaysaa wax yar adiga 5 to 4 minutes wadabooleysa maxaa ku dhahaa steam ama dhigaysa waqti waa ka daadinay biyihi filfil yar iyo olive ku daraysa ma sha Allah ciyaalka way cuna iyo cusbo yar. hadda basashiyan dabka saarnay marka ma sha Allah basash xogaa way soo noqotay maxna gaduud soo noqonaysa chickenki hadda ku dareena. marka madam fridge aan geli wax yar meesha ku dhigay qurux kalarka ma sha Allah aan ka hela marka saas noqoto wax ku dar barbarooniga shiidan iyo cusbo iyo filfil iyo toon shiidan aan ku daray insha Allah. intaas ka kooban tahay waxyaabaha aan ku daray markaan fridge-ka gelinayay intaan fridge-ka ka hor. marka wax yar meesha maxaan ku dhahay biyo aan ku soo daray dhacaan yar iga har meesha biyo ku daray ma sha Allah saas noqotay 5 to 6 minutes marka maxay daboolay kadib hadana inaan ku daraa maxaa ku dhahaa qudaartii oo soo dhaqo nadiif ah oo soo jarjaray sida daawanayseen intiina soo daawatay insha Allah. video-ga bilow ilaa dhamaad daawo si aad maxaa ku dhahaa uga bogatid insha Allah fudada ku noqonaya. markaas waan dabooleena wax yar maxaa ku dhahaa markay noqoto maxaan ku dhahaa wax yar hadda maraq digaaga waxaan ku daraynaa biyo yar oo kuleel ah sida maraq digaaga muxuu noqonaa marka ma sha Allah. hadda yaan shishiida ku darayaa maxaa ku dhahaa yaan fresh data ku dari kartaa laakiin yaan shishiidka ma sha Allah dhadhan fiican ay u sameynaysaa already diyaar waa ida. maraq digaagii hadda ku daray hadda broccoli oo temkiisa la gaaray broccoli-gan ku daraa. hadda broccoli aad u bislaado ma fiicno inuu maxaa ku macaan yahay oo maxaa ku dhahaa oo aad u bislaanin macaan noqon. hadda waxa ku daray basbaaska oo flex maxaa la dhahaa chili la dhahayo barbarooni shiidan xawaajiyaasha lagu talay doorada ama chickenka toon shiidana ku dara. hadda markaan isku walaaqaya waan daboolaya wax yar kadib. marka is really simple waa easy barbarooni shiidan ahaa. marka daaima inta karaal noqdo hadda inta si baastadii halkaas ku karkarayso biyihii diyaar ah baastadii hadda ku darayaa insha Allah.
cusbo iyo biyo iyo baasto waa taqaana qof si loo kariyo marka waxa ku qoran maxaa ku dhahaa inaa oo la sugo 6 daqiiqo ma ahayd hadaan qaldaneen kulay way ku qoran tahay meesha insha Allah may sorry waxa ku qoran ilaa 10 ilaa 12 daqiiqo inaa sugtid marka already sugada diyaar waay ma sha Allah inaba caadi ma ahan is ready wax yar kadib dabka aad u gaabinaya because biyo badan ina biyo ku dartimo u baahno dhadhan ma yeelanaysa biyo ka badisid biyo dhan ku dareysid saas isku bislaan isku huureysa wax yar dabka u gaabinaysa baastada time kala miiraa soo gaar waan soo miiray ayada diyaar ah waxa ku daraya olive oil oo yar ku daraya weelkaas ku shubay si macnaha baastada kala qaybina qayba marka aan ku daray sugado diyaar ah ma ku daray because wax ka noqonaysa meesha ku badanaysa marka si maxay dhadhan u sameeyso qaybta kale iyadoo cad aan dhigaa meel insha Allah wal isticmaalayo cheese keeni waqtigiisa la gaaray cheese waa mozzarella cheese iyo cheese kale waa inta si sawirka insha Allah screenshot oo ka qaadan kartiin baastada half aan ku daraya saayidin sheegay haddii aad waxay ku xiran tahay inta aad ka koobantiin familka marka insha Allah iyo qiyaasta adig markaas aad jeceshahay insha Allah half aan isticmaalayaa marka waa isku dhex dardaray ma sha Allah kalarka ma sha Allah inaba caadi ma ahan indhaha ka dharganiga oo ama already indhaha ka dhargan ku dhaay ma sha Allah cheese inta ugu dambeysay aan ku daray waa taas cheese ko inta siiyay ma sha Allah baasto iyo cheese lama kala fogey waxa maqli jiray waa la kala fogey liin caano hadda baasto iyo cheese isku heshid inaba caadi ma sha Allah marka hadda waan gurayaa already waa diyaar ma sha Allah carruurta u dajinaya inaba caadi ma ahan marka ciyaalka insha Allah marka qudaarta nacib insaan oo kale marka u sameeyay insha Allah way ka helaan way jeclaanayaan marka try it insha Allah I know ciyaal badan ma jeclo qudaarta inay cunaan laakiin hadii aad bartid oo dhowr nooc ka sameys already waata soo guray ready ma sha Allah waxa korka ka saaran waa maxaa ku dhahay avocado iyo basal baar iyo qajaar iyo yaanyo oo saladka lagu darsado it's very simple iyo biyo caadi ah biyo oo la qasqasay ma jecli intaas soo hartay fridge-ka gelina insha Allah lunch box-kaas ku shubaya dan fridge-ka ku xareynaya insha Allah kaas inta marka kariso ma fiicna banaanka uga tagtid ma wanaagsan caafimaadka aan taas intii radoon reebo waayo oo maxaan ku dhasuuga lahayn idin xareynaya marka xagga nadaafada la soo gaaray jikada dhaqay hadii la yiraahdo maadaama cunto aan ku sameeyay alaab dhaqooga isuga marka insha Allah alaabta kala tuuro waan soo dhaqay haddana xilliga casriida la gaaray ciyaalka cunug walba waxa siinaya 2 xabo oo kamid ah macmacaankaas siinaya ama 3 xabo gabadha yar waxay rabtaa tufaaxa u baahanahay looska shiidan aan qandiciyo microwave-ka galiyay malabaan ku daray insha Allah hadii tufaax lagu cuno ma sha Allah inaba caadi ma ahan hadii aad rooti xitaa marsan kartaa hadii aad breakfast ahaan ka rabtid laakiin marka casri ahaan tufaax aad ku dardartid ma sha Allah aad uga helaysaa oo u diyaariyay already oo u geena marka insha Allah waxa u qasaya cacao hot chocolate ani kaas cunaa insha Allah beeris waaye oo ka samaysan loos iyo shaah Somali tea waxa waaye I love it araf ma sha Allah waxa ku diray waxyaabo loogu talagalay heel qorto hadihin baby sidin taas siina casriideeda alaabta oo maxaan ku dhamaanta imaatay oo ka dalbay Amazon insha Allah ayadana waa idin la share gareynaya hadii Ilaahay yiraahdo marka ma sha Allah koobkan ka dalbaday oo koob kafeega lagu cabo aada maxaan ku dhahaa u raadinayay marka alxamdulillah hadda waa helay because mar walba online wax gadinaysid waxa fiirsaa views-ka dadka wax oo gateen comment-ka ka bixiyeen akhri hadii dadka macnaha positive fiican siiyeen ka gad insha Allah marka I hope so anoo ka heli doona insha Allah dad badan waxa siiyeen dhowr kun oo xiisay positive maxaan ku dhahaa views oo soo qor comment-ga meesha aan akhristay waana ka helay I hope so marka waxaan jeclaan idin qaybsa idinkana kuwa kale iyaalo oo maxaan ku dhahaa kafeega loogu talagalay laakiin noocan ma haysanin oo u baahnaa marka ka dalbaday buugaasna oo ku jira sagan meesha dalbaday waxa waaye maxaa la dhahaa kafeega oo korka la marsado body scrub oo kafee ka samaysan aad u jecel hore uga dalbaday haddana wuu i cajabiyay mid labaad ka dalbaday insha Allah marka haddana meesha waxa ku jira kan lagu cabo smoothie-yaha
maxaan ku dhahaa ma lagu cabo maxaan la dhahaa biyaha haddaa cabaysid ama caano ani yaristeeda bajeceshahay haddaa caano ama biyo la siinayo haddii haysanin maalintaas ma cabayso waxba laakiin haddaa siisid way cabaysaa marka wuxuu ka kooban yahay laba oo afar gaagaab iyo afar dheedheer ah marka laba afar qalqalooc iyo afar totoos ah waaye iyo burashka lagu dhaqaayay ku jira meesha asagana maasha allah dhowr xabo aan soo iibsaday marka oo ka heli waayay dhano somehow way halaabayaan koob kafeegaas noocaas iyaalay hadda laakiin aan dalbada noocan waaye shaqo isku lahan waa two different style waaye marka insha Allah I hope so inaan ka heli doono haddii video ku cajibiyo like and share and comment aad amaasantii walaalahaaga la qaybsoo kaleete videoyaal badan aan soo geli doono insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fi amaanillah walaalahayga